أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله مني وإياكم منها ثم أما بعد أحبتي الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haddii Allah subxaanahu wa ta'ala noo ogolaado waxaan waxoogaa ka tilmaami doonaa tilmaamaha zawjka wanaagsan haddii la yiraahdo hala tilmaamo horta waxa la yiraahdo guurka waa nimco Ilaahay subxaanahu wa ta'ala Allah baana wuxuu leeyahay wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قولك وأن إلهي سبحانه وتعالى وحنا للربا إنه كرش مودية الرحمة جعيل إنه يمادو أيا لقما مارمان سيدا استرتد وحال لقما مارمان إنه زوجك صفات أما تلمام الله قدورت إنه يجري دونان مركا كوبات وإنه زوجك oo gabadhiisa isaguna sida uu jecel yahay inay gabadhu isu qurxiso zawjkuna waa inuu isu qurxiyaa waa laga maarmaan su'aalo ayaa laga maarmaan in la weydiiyo zawjku wuxuu yiri igu yeera ninka gabadha qaba markii uu yimidna wuxuu u yimid isagoo aad iyo aad suuradiisu ay u liidata qaabka labiska iyo hindaamkiisa iyo qof ishagaajiye uu sanahayn wuxuu u diray asxaabtii wuxuu ninkan kaxeeya ha loo soo labiso hana soo qadaysto hayso soo nadaafiyo si fiican isagoo ay u soo celiyo wuu yimid xaaskiisii buu markii dambe u keenay gabadhiina way garan weyday markii ay garan weyday baa waxay garatay amiirul muuminiin Umar ibn al-Khattab inuu sidan sameeyay kadibna Ilaahi subhanahu wa ta'ala reerkii halkaas ayaa wuxuu dhaxdhigay مودية جعيل وحير عمر قف ولبها أوجاده سيده وجعليه حاسكيسو إنه يسوق قرحيسو إنه يدنا جعشهاي إنه يسوق قرحيه الرماء كلا الزوج كلا جمع مارمان كصفات كيسامة الماميس في عينهن وحوي ملاطفة الزوجة وممازحتها وحلا جمع مارمانة زوجك جبردا إنه لكفتمه ولا جمع مارمان arrimahaas inuu san u malaynin inuu jaanibka kamaadiga gabadhu inay u baahan tahay cunto iyo cabitaan iyo dhar la xirto inta kaliya inuu awood saaro halmaamana dhinacii kale iyo gabadha la kaftankeedii iyo ciyaarteedii taas oo dhan waxay noqonaysaa umuura zawjka ka saaraya ama ka ridaya wadadii saxda ahayd rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxaad xusuusataan عائشة وحيابيه ولا سمين جري واحد جري مركي أي ترتن كجلان سيد وقتهين أما أي عائشة رسولكو أي أرض السلاسميين أو أي عائشة كبد السي هذا نواجي دم بواكوي أرتمي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أي هذا مركي دم بكبدي وحنا كل هذه بتلك عائشة وحدوغاتا مربقف أي بدنا يصيدا سوكله sidoo kale rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nimankii al-Habash markii ay masaajidka ku ciyaarayeen waad xusuusataa inay Aisha leedahay bal waxaad qadartaan gabar yar oo daadeedu yar tahay oo ciyaar fiirsanaysa inta ay ku noogaysa ama ciyaarta ay ku daynayso waqti dheer buu rasuulku u taagnaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Aisha inta istaagtay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam luqunteeda ka soo ridatay garabkiisa ayay ciyaarta fiirsanaysay ilaa iyadu ay ka daasho marka intaas oo dhan waxay keenayaan in uu zawjku gabadha naaxiyada ama dhinacaasna awood badan inuu saaro waa laga maarmaan
tilmaamaha kale ama talooyinka zawjka la siinayo waxa weeye rifqan bil qawarir gabdhuhu sidaad ogsoon tihiin dabeecada dumarku waa dabeeco aad iyo aad xasaasiyad ah kalimaadka iyo erayada way dareemaan cibaaraadka iyo ishaaraadka way dareemaan waxa jaraaxeeya oo qalbigooda dhaawaca waxyaabo yar yar oo kalimaadaba dhaawac ku sameynaya sidaas darteed waxa laga maarmaan ah inuu ka fiirsado zawjku erayada uu sheegayo ama uu ku hadlayo mar walba inuu ka fiirsado waa laga maarmaan naqdiga caqiimka ama inuu mar walba wax ka sheega gabadha oo iyada aan arimoortaasna guriga aan saacideynin waxna u qabanaynin waa laga maarmaan gabadh ayaa baxthi samaysay ama arintaas ku samaysay inay soo ururiso waxyaabaha keena inay reeruhu kala tagaan waxay tiri gabadhaasi natiijadii u dambeysay oo soo saartay boqolkiiba 50 wax ka badan reeruhu waxay ku kala tagaan kalimaad iska yar yar oo odayga ka soo fulay eray yar yar oo ninku zawjku ku dhawaaqay oo uusan u arkaynin wax weyn inay sameynayaan ayaa umuurta noocaas ayaa keenaya طيب umuurta ama tilmaamaha laga rabo zawjka inuu ku qumo ama uu la yimaado waxa weeye ishba'a raghbataha fil hadith ilayk gabadhuhu sidaad ogsoontiin sheekada way jecel yihiin raggana way ka warbadan yihiin arintaasna waxa weeyaan arin xaqiiqa oo la gaadhay oo cilmiyan lagu ogyahay inay sheekada ka jecel yihiin wamaca dalika ma jecla waxa daraasaadka la sameeyay gabadhu warka markii oo horeysay ee la afbaranayo wiilka way ka hor hadalka way kaga hadashaa waxa kale oo daraasaad la sameeyay lagu ogaaday almadaaris athanawiya markii iskuulaadka la ogaaday luqawi ahaan midka ku warbadan inay gabdhuhu warka ka hor badan yihiin ayna maartay hadalka ka jecel yihiin umuurtaas oo kale laakiin arin muhiim ah ayaa jirta gabdhuhu ma jecla inay siyaasadda ka hadlaan ma jecla inay ka hadlaan umuurta jaadada ah waxayna markaas aad iyo aad u xuseeyaan alhadiis can alashkhas wal ashyaa مثلا inay ka hadlaan iyagu umuuraha sida مثلا waad aragteen oo inta badan gabdhaha warkooda de waxaad ku badan ogtihiin hebel laaya sida iyo hebel ba sida iyo fulaan ba inta ka baxay iyo warka noocaas iyo waxyaabaha guriyaha la dhigtay in la sheegay iyo مثلا waa wararka gabdhaha ku badan مثلا zawjka waxa laga maarmaana marka inuu yahay sabuur inuu ku sabro inuu gabadha umuurta uga jawaabo inaadan oranin kelimad kasta ay soo qaado inuusan aamusinin waa laga maarmaan marka inaad waqti geliso baaxisadii gabadhii oo gabadh wadankan u dhalatay oo runtii samaysay baxthi aad iyo aad u cajab badan waxay tiri غالبا ما تسأل المرأة من أجل استمرار الحديث بينهما waxa la yaaba inay gabadhu mar walba si weydiinayso oo su'aasha u jeedinayso inuu warku si socdo بينما نينكو umaleynaya as'ilada iyo su'aalaha la weydiinayo in macluumaad iyo information isaga laga rabo uu umaleynayo marka labada dabeeco si loo ogaado dabeecada ragga iyo dabeecada dumarku halka way ku kala gedisan tahay marka waxa laga maarmaan zawjku inuu yahay sabuur arrimaha kale oo muhiimka waxa weeye inuu zawjka wanaagsan gabadhiisa aan tuxsina munaadata dhawaaqeeda inaad wanaajiso oo magaca ay ugu jeceshahay aad ugu yeedho xitaa waxa muhiim ah inuu zawj waliba xaaskiisa magac uu u sameeyo oo isagu u bixiyo iyada khaas ah rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam sida ogsoontiin Aisha magaceedu Aisha ahaa wuxuu oran jiray mararka qaar kood ya Aish isagoo magacii bedelayo oo wax ka goynaya ya Aish marna wuxuu oran jiray يا حميراء ومد عس أيو رسولك صلى الله عليه وآله وسلم مدبكيد وجدود كيهي أيو كل شيء جري الرماها صار رسولك صلى الله عليه وسلم وأنا حديث شيخ الألباني وصحيحي إنه رسولك صلى الله عليه وآله وسلم السداس وأورنجري لكن علماء وحي إليهن جوردوا وين مروا بوزوج كوسم يوم مجع دلع الليل هذا معناه هذا وحوي مجع يد اللي كل يوم يسوي وسم يوم والله مارمان لكن مجعاس لبضوا وين يقانان أو سنكبحين أقوانت قيسك أو كليه أمورها